معنى السمين ميسا ولا ليا إناد مساجد كدحفر لذو عالم كينا كوفرين sheekada aduna halka u badan tahay ganacsi masaajidka gudihiisa ka kala rogaysa internetkii baa ku furan meesha qaar kood shukaansi baad ku jirtaa waad itikaafsan tahay shukaansi baa lagu jira waad itikaafsan tahay xiriir baatilaad ku jirtaa waxaan macna lahayn baa waqtigaaga qasaya barahan aadamuhu ku xiriira bulshadu ku xiriidad kolba mid galaysaa iyo mid uga gudbaysaa internetkii baa ku furan waadna itikaafsanta war ka iska shaqayso meesha aad fadhido macna sameyn mayso itikaafka macnihiisuna sida ma itikaafku waxa weeye shaqooyinkaaga muhiimka baad soo xidhay ganacsigaagi baad soo xidhay muhiimtaadii baad ka timid reerkaagi iyo qoyskaagi iyo ku baahan baad ka soo dhaxbaxday ilmahaagi baad ka soo dhaxbaxday halkan aad u soo go'day haday sida noqotay marka waxa ii furnaanaya internetka saan doonaan u xiriiraya maya naam waxyaalaha laga maarmaanka dhib male soo xaaje gudo cunti cabitaan baad u baahatay soo gudo xiriir laga maarmaan oo gaaban baad u baahatay samee ayla nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ma bayna habeenada maalin asagoo itikaaf masaajidka ku jira ayaa xaasaskiisa mid kamida u timi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxoogaa bay la sheekaysatay isagoo itikaafsan kadibna markii ay dhamaysatay way soo baxday nabiguna sallallahu alayhi wasallam waa la soo baxo waa sagootiyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wax yar oo dhib lahayn oo iska mubaaxada la ba'sa laakiin waqtiga in la wada geliyo wixii laga soo cararay banaanka looga soo cararay masaajidda gudaheediyo waa la itikaafsan yahay maya hawshaasi waa in lagu baraarugo